waxaa khadka taleefankaasi toos ugu jira madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo State of Soomaaliya Maxamuud Cabdullaahi Caanuug oo haatan ku sugan wadankaasi Dubai waxaana wareysiyo dhinaca badan taabanaya siin doona shabakada wararka ee Buuqda Channel Media madaxweyne soo dhawow aad ma ku salaamaya xuseen adiga iyo channelka aad qiimaha iyo qaayaha leh ee laga daawado Soomaaliya sanadkii cayn way wada salaamaya dalkaasi wareysi guud ahaaneed ayuu siin doonaa madaxweynaha wuxuu ka hadli doonaa xaaladda guud ee gobolada SSC iyo waliba sidoo kale xaaladda Khaatumo haatan waxaan ka wareysan doonaa madaxweynaha haddaad tihiin madaxweyne Khaatumo maxaa idin diiday inaad sida dowlad goboleedyada oo loo sameeyo oo kale adinku aad samaysataan ilaa khayr badan ku siyaadeen waa su'aal qiimo iyo qaaya leh haddaan se dul istaago su'aashaada ahayd maxaa idin diiday in aad sida dowlad goboleedyada idinku dowlad goboleed aad leedihiin oo reer Khaatumo ah u samaysan weydeen adeerow waxay ka dhici weyday maalintii la aas-aasay Khaatumo shirkii lagu qabtay barda Khaatumo wuxuu ahaa January 2012 January 2012 halkaas oo maasha Allah ergooyin aad u badan oo reeraha ka soo kala jeeda ay ku samaysteen maamul loo dheeyahay waxaan noo diiday in baabi'iyay waxay ahaayeen markay noqdeen reerkeen ka soo jeednay maamulayay watay saddexda madaxweyne loo magacaabay uu adeerna walba noqday waxaan maqli jiray reerka dhubaanta la yiraahdo waa igu shubo mise ku hadal beedaa ku hadal adeer mid walba ku hadal buu noqdo laba wasiir waa kuwa cararay oo ay kala galeen garow midna wasiirkii noqday arrimaha gudaha oo hadda ah madaxweyne ku-xigeen baabi'iyay meesha dowladnimada Khaatumo dhulka dhigay horta waa reerka dhubaanta la yiraahdo iyagu samaystay waxaana iyagii baabi'iyay tanoo sii raacday markaa dhibka nagu noqotay waxay ahayd dowladii Sheekh Shariif oo iyana ka biyadiidanayd in uu samaysmo gobol saddexaad oo daarood leeyahay ma fahansaneen iyagu ma jeerteen oo ciil qaba ayaa isna meesha dagaal ku hayay oo diidanaa inay Khaatumo meel gaadho marka waxay soo kala raacay dowladii markaa jirtay ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif oo aan ogolayn oo ku dagaalamayay wax la yiraahdo harti dir waqooyi iyo xaab ku xisaabtamay ayaa horta dabaafiyay taasoo xasan Sheekh baa ku xigay isna halkii uu raacay ninkan hadda jooga meesha dowladda federaalka maamulka haystana horta tiisi baa ka badan oo hawlihii kala u yaala marka uu taa dhameeyo على الهيد أنه نعرف إن شاء الله دور استاجد ودعولها لكن هذا أولا بدل ما نصوتنا عدي الله يدمو وصبرس كنا قدرنا مدة قلت الله شيء غير إنسان ما بدأ شيء غير إنسان سومالي لنا موحي مربعنا عن أقرين إمام وكاكس ورشيد هذا كوسنا يا مدحوين بل جيست كان دولتي بوتلان أد وحكدي ستين بل حكي وحوم ريان سؤال بريها بوعي الغوين اللي ويدي ورد دولة بوتلان ما نتلا دسي إلا ما أنت مدحوينه وري عبد الله يوسف إيه كان هذا قذات خوين ديني سنسواري أنا قانون وصومالي باقاني نين دقن له ودقن هرتي له ودقن دارود له ودقن صومالي له أدير معه واي هدو دقن ليه هاي قوله سي بارلمان كي وينا كوي اللي قروه intuu ku weeraro warsangeli dhiigoodii yaalay inuu hadana nin kale warsangeli ku soo doorto waxay la tahay inay tahay dirbaxa xun waxay la tahay dameer xun markaas ku soo noqdo taadii ahayd xaguu ku dambeeyay waxaad xisaabisaa maalintii Allah yarxamay Cabdullaahi Yuusuf qabsaday ilaa maanta odaniya Somaliland marba meel bay ka qabsanaysay Puntland marba meel fi u dambeysay waa taadani ay ka qabsatay buucabe marka Puntland tana sheegaysa xagee joogta Puntland ninkaas imika jooga sensibaariga ah in lagu sheego leh waxa weeye wuxuu yiri SSC waxay ahayd radal qadar SSC waxay ahayd buu yiri argagixisadii ugu horeysay ee Soomaali ilaa maanta dhibka ay taagtay ka bilaabanta waxay ahayd gurigiisa ee Madrid SSDF ahayd ama qodbis wax loo jiray argagixis haday jirto kow qodbis bay ahayd maanta inuu ku tilmaamo dhulbaante adeer uu yiraahdo waa argagixiso
hadduu isagu inaanu argagixisatay waxa ku tusaysaa golihii baarlamaanka inuu xabad la dhaco oo meydka dul yaalla oo haddana kuwa kale ku sameeyo adeer puntland talaad sheegaysaa ma jirto maalinba wuxuu iibinayaa balood waxaan maqli jiray qolada reer sheekh saxaabo tiraha balood buu ka dagaa maalin balood warada ciidin balood ka degaysaa balood iibinayso kana balood maalinba ka daga ina balood iibiye weeye waxaad u garanaysaa bikadii waxa iibiyey kii hore ka horreeyey madaxweynaha ka ahaan jiray isaguna boorkiibu baloodkii laga ku daro iibi wuxuu joogaa kiiniyuu ka dagaalamaya ula dagaalamaya dowladda soomaaliya ee teediiba haysato wixii loo diray iyo dowladda puntland sheegaysaa waxa la yidhaahaa ma jiro adeer qabaa'il baa haysu tegay oo kala warsan galay cabaadaya xabadda la dhacayo dhulbahantana waa deeqooda magacooda loo dashay ku hadalka iyagoo lagu shubtaa qolada dhibaataa waa ku hadalkii marka waxaan sugaynaa hadda qolada in ay hadda ka madaxweyne ku-xigeenka isagana xabad kala soo saaran insha allah taasaan sugaynaade marka wax puntland la yidhaahdo waxbaa la wada leeyahay way dhimaatay nin walba gurigiisu leeyahay waxaad ku dareemaysaa nin walba gurigiisu leeyahay waa taase bal cara ay yimaadaan xudub oo yimaadaan taleex oo yimaadaan boocamaha labada talaabo jiray bal ha yimaadaan hadday waxay dib puntland marka meebay puntland waa guri ma jeerteen iyo ilma saleebaan kala sheegayaan oo sakaran maayo aad baan ku salaamay waayahay geesta kale madaxweyne gudoomiyaha gobolka gobolada puntland danay intuu gudoomiyaha ka ahaa maxay qabteen maxay soo kordhiyeen wuxuu soo kordhiyey inuu warsangeli xabad la dhaco inuu warsangeli gudoomiyaha isu sameeyo inuu dubay tago marba dhulka iibiyo inuu kenya tago oo soomaaliya burburkeeda ka xisaabiyo wardanimee anigaad weydiinaysaay warta habeenka caawa danimeeye sanad buu joogaa sanadkaa marna wuxuu fadhiyay dubay marna wuxuu fadhiyaa kenya warbal nin aan dowlad ahayn dani waxa dowladu eg anigu uma aqaana madaxweyne waxaan u aqaanaa gobernatore ama gudoomiyaha gobolka puntland buu ahaan kari inkasta maxamed mahaba hadda wasiiro wuxuu fadhiyaa meesha la yidhaahdo kenya wuxuu kala dagaalamayaa dowladda soomaaliya ee adduunkii ictiraafsan yahay ee meel walba martay ee ardaydoodii u diiday shahaadadii waxaan ugu sheegaynaa wax puntland la yidhaahdaa ma jirto gudoomiyahan gobolka iyo gudoomiyahan wax dhammaatay way burburtay waxa weeyaan waa baloorka maalinba mara tagayo dubay ee hotel kusoo iibinaya airboortka maalina kenya tagayo isaga iyo mid dhuxulaysta lagu sheego aanan bagaray wuxuu yahay iyo wix matalo waxay ka hadlayaan 2021ka doorashada soomaaliya warbaladyaro caqli xumada intaa leeyahay doorashada 2021 ayay u digay dablooyin guryahoodii iyo tii loo dhiibay iyo mas-uuliyaddii saareedna alleheedka all warba kama haya marka yuu u talinayaa marka muxuuse doonayaa nin isagiiba tiisi dhamayn la 2021 muxuu ku gaadhaya ilaa waa kan balooladiisa dhamayn leh markaas waxa weeye waa nin aan soomaali eg dhaqan soomaali ma leh oo dhaqan harti ma leh oo dhaqan daarood ma leh marka qof waa in la eegaa muxuu yihi maalinta uu qabsaday ilaa maanta dhib iyo dhibaato iyo soomaali naceeb dhulbahanta naceeb warsangeli naceeb marka muxuu yihi wali dhiiggii shalay ku daadiyeen taleexdaa yaalla aan weli leeloobin dadka iyagii baa caasan oo ay bajeerteen laayeen war taariikhdu way isqoraysaa iloobi maynaade hadda waxaanu samaynaynaa taariikhda maalintii la xasuuqay reer taleex waa taariikh qoran farooley ku qoran tahay faroole waxa weeye marka waxa weeye adeerow waan xishoonnay hadda way dhammaatay alamtara soo dhaaf wey sheekadu waxaan u sheegaynaa afgaa boqoleene warhoy nin waliba xabad waa yaqaana sida loo rido nin waliba xabad waa yaqaana sida loo rido waxaanu aad iyo aad u cambaaraynaa uga soo horjeednaa baabi'inta iyo dalkaa la kala baabi'iye la kala gooyey annaguna haddaanu maanta nahay reer khaatumo adeer waa tashanayna waa naga go-antay awal waxbaanu xeerinaynay laakiin xeerkii ugu dhammaaday hadda iyagaa xeerka joojiyey waayo maalinba balood baa laga qabsanaya puntland maalinba balood bay iibinaysaa dhulbaanta leeyi balood ka bilow laascaana ka shishe ilaa maanta way boocade balood ba iibinayaan waa iib marka iib ma nihin adeer gacdi saacadda laga bilaabo waa dhammaanaysaa somaliland iyo khaatumana way dhamaysanayaan marka baloodhada sheekadoodu waxay dhamaysaadeen aad baan ku salaamay waayahay madaxweyne geesta kale guddoonka komishinka reer sheekh asxaaq weli waa la isku haystaa khaatum ahaan maxaa idinka baxay waa su-aal qiimo iyo gaaya leh adeerow anigu dee markaan aad tiraaho guddoonka
رشك صح هذا بلك وهل قبيل هذا القبيل كقرن من نقون كرم إذا تضو حوي وحيسوها سنة سووا رسي وحوي و only one family ومركز دافع ما يجي ويزرع حبري بكل اللي حرسه وحاسك واحد غيرسه مركز الأولي وحيسا صد حسبي إلى هذا روقالي وهذا روقالي ولا روقالي صد حسبي وهل غير قصة وذا شيء ويجوا هايستا هذا محيته ولي قد ما يشين كره وحنا كل شيء كريم وهو وردت كيد الله حامية وحن وردت كانت كيد الله حامية وكل ذا دقنا حامية وحيوان دد الله عين بركوش دد يلا واينا والله خل عرّي وحلي وانا قطعي تعطر دد ملاي مركب مانتا دولة الرشة كسحقة دد بانتا دد ملاي waxay soo haystaan kuma shaqo way waa in kaarta ka haysata dadka dhinacyada ee qaylinaya cabaadaya ee aan waxba ku lahayn dalkii leeyahay waa Soomaaliland la wadalay waxaan qabaano reerkaasi iyaga isku mashquulsan hadda markuu basha la isku haysto mar doorasho la isku haysto laba sano madaxweynaha haystaa maalin ma nasameysna wala wuxuu jiraan mar waxa qaylinaya gudoomiye la yiraahdo mar waxa qaylinaya gudoomiye wadani mar waxa qaylinaya dhinacooda waa saddex ilmaadood oo jawaabiyo baradu ar waxada eegtaan nin ka soo jeeda harti way nin gada buursi ka soo jeeda nin kale ka soo jeeda ma dhibaan male oo intuu soo istaagay idaacad ka hadlayo leh adaan hay xisbi hebel ma jiro waa saddex nin oo mid yahay ila gale mid yahay ila beeraga dhowr Musa Cabdalle inna uu yahay nin habara wala ka soo jeeda umadii kala meeday marka maxay ku soo marka commissionkii wuxuu noqonayaa one family one nation qarannimaduna way ka weyntay waxa marka waxaan ku soo gabagabaynayaa ninkii u hanweyn hoggaankan dalkow ankaagu ha dhaafay reer dalka aad ku salaamay waayahay qartaadtii madaxweyne reer Khaatumo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guud ahaan reer Khaatumoba xaalkeeda xagee buu ku dambaynayaa ilaa khayr si waxaan filayaa waa laga soo jeestay dowlad goboleedii la oran jiray galmudug bay ku mashquulsanay dowladdu waxaan ugu haray hadda Jubbaland baa loo jeestay halka iyo wadiga arkay waxa ka dhacaya dhinaca Jubbaland ee in loo sameeyo dowlad cusub oo gobornatoore cusub hogaaminayo inaad argacaliya hawshii Khaatumo wali waxay saaran tahay miiska lama kala furin laakiin annaga taladeeda keenayna sida ugu dhaqsaha badan insha Allah waxaan soo ku sheegayaa heer waqooyi baan noqonahay haddaan waqooyi waxaan wax ku weyno adar waa tusareyna talaa naga cad naga go'an waana go'aankeeduna dhaqso ayuu imanaya haddii Allah Khaatumo warkeedu waa cadda heshiis bay gashay heshiiskii bay dhirindhirinaysay heshiiskaasi hadduu adeer miladhali waayo sida ugu dhaqsaha badan ugu sheegay sida ugu dhaqsaha badan hadduu ku miladhali waayo wallahi tala meel bay taala waa diyaarsanahay waa naga go'an tahay haddii uu miladhalana allahu malaka alhamd haddii uu miladhali waayna allahu malaka alhamd shukran go'aanka iyagu waa cad yahay sida ugu dhaqsaha badanna waan soo gudbi doonaa hadalkana hanaga wada keenin aad ku salaamay waayahay madaxweyne guntiga gabagabadii maxaad ku soo gabagabaysaa waraysiga madaxweyne Soomaali maanta waa qabiil nin waliba waa tashtay qabiil waliba waa tashtay waxaan ugu baaqayaa reerkaan ka soo jeedaano inay dantooda gartaan inay isku tiirsadaan inay wax wada qabsadaan si aan uga midho dhalino dadkayga abaaraha biilaantooda hayso si dhaqso badanna insha Allah haddaanu nahay dowladda Khaatumo buuhoodaan ku gaarayna insha Allah hadda ku socdo halkaas oo biilaan ka jirto laan maqlaayay si aanu dadka biilaanta iyo abaaraha ku soo socdaan adana wixii aanu ka qabanno awal buu shaqeey jiray dadkayga qadar waxaan insha Allah ballan qaadayaa sida ugu dhaqsaha badan tago dalkii oo aan hawshii soo gabagabayo hawlahaygaan qaban jiray ahaa caawinta dadka iyo masaajidda iyo wixii hore dib ugu dhawdar gacay marka waa dadaalina oo ku tala jirnaa waana soo socdaa waana salaamaya kulli gaar السلام عليكم waayahay kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Khaatumo ee sida Soomaaliya Maxamuud Cabdullaahi aanu waqtiga taraafika si toos ah ugu jeeso ku sugan wadanka Abu Dhabi isla markaana wareysi gaar ah siinay shabakada wararka ee Buuhoodle Media Channel madaxweynaha wareysiga kaga mahad celinayna aad iyo aad ku salaamay